بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليكم سو دواده جنالك أنا حاسي هوي ده حاسته ده هوي ده حاسي هوي لبض بتهاي إن شاء الله بملاك كسو دواده ما أنت عالنك صوماليا وتام استرادين ما أنت عالنك صوماليا وتام استرادين ما شاء الله. Anyway you guys so ما أنت طبق رأينا وضع إن شاء الله بإذن الله الكريم. طبق واحد تهدد كيسوي دي السويدن إياه جرمك كيف في عن محيب كل الدنيا محينه كل في عنيهن مركا طبق أصلا actually محل إيش طبقاasna actually maskaxda igaga taagnaa so this is waxaan rabaa hadda maanta idin sheegana because sirna waa soo deganaa jarmalkan waa deganahay marka maxaa la sheegana jarmalka hadda markaan video ka hadlay live ayaan dhaxsan soo galaynay markii la weydiiyay waxaan dhahay jarmalka ka fiican so dadku waxay rabaan inay ogaadaan waxyaabaha qaarkood ay kaga fiican hal shay leen ka sheegay soo badiyaa la yiri waxyaabaha qaarkood ay jarmalka iswinan uga fiican tahay. Okay so let's start inshallah videogan idin ku dheereen ولا شيء هذا الصومالي ولا شيء هذا هوي تهاي أما سام ولا شيء هذا هوي الصومالي تهاي أما متقنا هوي حاسي هوي أتاي أما محل يعني لبض بربط إنها نقطة فيوتشر كدي له رالي كان نقطة سود وجنا كان شنو الكاغواي فممكن قصة بيرن إن شاء الله بإذن الله الكريم نقصوا من نقاط دي له وحول بوخوي الصومالي قصة بسنا أياك هذا لنا حتى قبرت هاي إن شاء الله مستقبل كأرب دينا نقطة حاس أما هوي لبض بقى سو نقصة بيرن هدي له هذا أوكي I don't know بلو هاوش بلو بس قصة بحياة لكن يب بلو كم بدني أوكي whatever yeah so number كو أفر شيء أو سوين جرمالك سوين أرجع في عن تاي إني شيء إن شاء الله أفر شيء إني شيء جرمالك أرجع في عن تاي سوين هدي له هذا number كو وحوايا عنده number كو وحوايا عنده وحوايا جرمالك ويكجر قصة تاي سوين dhinac hadii la dhaho mataqaana isheegana cuntada whatever ay noqoto oo mataqaana I think guriyaha xataa jarmalku way kaga raqiisan tahay jarmalka way kaga raqiisan tahay Sweden okay Sweden saa'idig uga raqiisan tahay Norway anagana idin kaga raqiisanahay okay this is this ani waxa xasuustaa waagi aan Sweden deganaa marmar qabka maalmo ama markaan fasax u aadno reerka aan la deganaa Copenhagen aadaan ka soo adeeganayeen because Copenhagen is like maxaa la isku karqisnayd anyway so wala kala qisay soo jarmalka markii la dhaco cuntada ahaan annaga waa idinka qarqisanahay waxa arkaysaa caano oo mataqaana subhanallah la gadaayo dad waxa arkaysaa hilib Norway horta markeeda Norway horta ma garanay Norway meesha faqriga ka aragta wadankaas aad u faqri u yahay I don't know wadan qaali ah waaye yani qani ah badrool u baxo wax walba u baxo still they so freaking maxalla ay sheegana faqri is like ridiculous I don't know halkii caano maxaa la gadaayay Oh my goodness, it's ridiculous. وقالي جرمالك سو رقيس الحمد لله. أنا هدي واحد لقدر سنتي على قدرة إلى هذا وحساس لو مدرة لكن آدي منتظر لركي واحد بدي كجبرنا هاي وادي كجبرنا هذه الحيرات. Okay, so that's number 1 way. number 2 وحوا عافيماتك حاجة عافيماتك واتان صوت تابتي عندويت حاجة عافيماتك وإني كجفي عنها هاي وح إني كجفي عنها إنه حواي in Sweden waxay yeelaa caafimaadkeeda kaga fiicanna waxa way jarmalka Sweden waxay kala duwan yihiin Sweden waxay leedahay meel oo yiraahdo Vård central kaas qof kasta tagaya qof kasta waxaanu sameeyay soo tagaya soo marka dhaqaatiirta dawladda wax siiso dawladda qarashkooda siiyo biilkooda siiyo okay so that's why they don't care shaqo kuma laha mifaad ayaga biilkooda oo soo dhacay so they don't care jarmalka waxa waaye dhakhtar kasta wuxuu leeyahay xafiis oo furan okay and dhaqaatiir private way jira laakiin private ka kala ah private kuwa midka private ka lacagta ka soo qaadanaya asaga laakiin kuwan kale waa dhaqaatiir private waa aniga dhaqtarad ah ya xafiiskayga furanaya soo maxaa la sheegana dadkii waxaan rabaa inay imaadaan okay so jarmalku waxa waay maadaama dhaqtar kasta xafiiskiisa u fadhiyo oo mataqaana dadka qof marka dhaqtar kasta wuxuu rabaa dadkii inuu imaadaan asaga caafimaadka soo raadsan soo lacag ku helo mi fahmaysaa so I think this is waxa keenaya Sweden oo uga fiican yahay jarmalka because marka dhaqtarkaas oo kale congress ku jira mi fahamtay aniga kale dhaqtaradeeda hadaan ka helin oo waxay sameeyaan ka helin wax ka bedelanay dhaqtar kale aadaya you understand so dhaqtarada kale markaan aadanay iyada waxa way patient lose garanaysa hadhowna maxaa la sheegan waxa laga yaabaa yani hadda dadka dhanka wada tagaan inay macnaha ku adkaato lifekeeda of course so mogid so nolosheed aad u adkaato so marka jarmalka waxa waaye dadkan tartan ee lagu wada jira so qof walba wuxuu rabaa patientkiisa inuu haysto uu soo dhaweeyo oo mataqaana you know
Sweden laakiin waxa waa gafurka wada taagayaan kulligood sankaasay wada taagayaan you know why lacagta ceyrta waxa soo duulayso dowladda u shaqeeyaan dowladda soo duulayso I know Sweden private way leeyihiin dhaqaatiir private laakiin qof kasta private ma awoodo run ahaantii laakiin dadka mataqaanaa Vår Centralka la isgeenaya Vår Centralka waxaan ku dhahay inta soo qof imaanayso ninkan dowladdu lacag ka helaya garo baxu kule biyo soo cab bax maxaa wax ma qabtid kule iskaga soo diraya yaa nistaa xaq hadlaya so yeah caafimaadka saasoo kaleeto Sweden waa kaga fiicanaa boqolkiiba boqol waa kaga fiicannahay ani waa videoga I don't know inta idin soo dhigay videoga waagi aan xanuunsaday oo 12 saacadood aan dhex fadhiyay maxaa la sheegay emergency-ga hal dhakhtarna arkin hal dhakhtar anoo xaamila 6 bilood uur leh mataqaana neerfaha dhinacaan istaagay neerfaha wajigayga istaagay maxaa la sheegay oo paralasa ah oo xaamila ah 12 saacadood dhakhtarka isbitaalka waxaan ku jiray emergency-ga la aan fadhiyay oo qofna dhakhtar aanan arag dhakhtar dhan aanan arag markii dambe bas taxis ka soo raacay guriga iska imaaday so this is waxyaabo qaarkood aan Jarmalka marnaba ka dhicinin waaye never ma ka dhacayso Jarmalka inaan 12 saacadood meel iska fadhidid oo dhakhtar ku arkin especially hadaa xaamilo aad tahay xaamilada markaa tahay waxa waaye qasab yani dadka kale waa ka sii horeysa you understand so yeah marka videogaas insha Allah maxaa la sheegay videogaas inta meelaan idin soo dhigay fiirsan anoo xoogaa yar ka taabanayo maxaa la sheegay caafimaadka Sweden okay number 3 Sweden ay kaga fiican tahay Jarmalka ay Sweden uga fiican tahay waxa waaye hooyada markay uur leedahay ee dhasho hooyada markay dhasho hooyada waxay xaq u leedahay ama haday shaqaysi haday shaqaynimo waxay xaq u leedahay 3 sano in cunugeeda guriga la joogto 3 sano waa maqashay dhageyso 3 sano 3 sano cunugaaga xaqa u leedahay guriga la joogtid adigoo mataqaana lagugu siinayo lacag lagugu siinayo ilmaha guriga la joogaysa this is Mareykankana ma qaba Mareykanka horta marka asiisadba aad tuurta cunuga soo dhishidba markino horash ka shaqay lagu leeyahay iga daakaasay ama Sweden dhaantaabo wallahi Sweden dhaanta Mareykanka subhanallah Mareykanka marka soo dhishid waxa lagu leeyahay orod 3 bilood haday ku siinaa bursida so maxaa la sheegana alxamdulillah videogaas Mareykanka ka soo dhawaanaan kii lewitaas maxaa la sheegay alxamdulillah Sweden laakiin hal sano lagu siinay hal sano kaliya aniga saan xasuusto hal sano kaliya lagu siinay hal sano fasax leedahay cunuga marka ilmihi waxa jira marmarka qaarkood sanad ku bilaabay inay socdaan mugta ilmo qaarkood sanad ku bilaabay inay socdaan so ilmo qaarkood waxa ka soo gurguuranayo you know gurguuranayo oo dogs dhex jooga dogs you know hooyadana subax la sida dhaqaaq la dhahayo naag kala hayso ilmahaas ma abay that's so horrible I don't like that wallahi aniga no meesha waa geysan kartaa waxa la meel kita la dhahaa oo loogu talagalay hooyooyinka shaqeeyo oo raba shaqada inay ku noqdaan hooyinkaas oo ilmahooda way geysan karaan adiga waa geysan kartaa whatever waa la geysan karaa laakiin qasab ma ku tihid cunugaaga 3 sano goor guriga ku haysanaysa lacagtaada lagu siinayaa ay calm down cunuga 3 sano markuu gaaro kindergarten geysanaysa oh my god that is so nice wallahi taas aad uga helo Jarmalka hooyo kasta waxa way waqti fiican iyadoo haysto cunugeeda iyo mataqaan iyadoo happy shaqadeeda ku noqonaysa that's perfect okay Sweden ma qabtaan hal sano lagu tuuraya ilmihi maxaa la sheegana idinkan waxa idinka sii daro Mareykanka waxa way marka saas cunug u soo tuurtid shaqadaada ku noqonaysa nobody gives them about you wallahi qof shaqa ku leh malaha so yeah ilmihi yunisha saqiir markas dhashid 2 bilood maniica aba dadka lagu tuuraysa that's so horrible isn't it oh I don't know taas ma sameyn lahayn ani and number 4 Sweden kaga fiicanahay oo kale waxa way walaalahay number 4 oo aan kaga fiicanahay Sweden waxa waaye hadii ilaahay raahdo ilmaha sama wajigeeda soo dhub noqdo sama gaar ah xijaabkan waaye number 4 waxa waaye Sweden ilmaha de wax oo hada oo aan qalqarinayna ma ilmaha Swedishka waa la wareystaa ilmaha yarka Sweden ilmaha yarkan waa la qaataa waana la wareystaa okay anaga ma qabno waxaas alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala inaguma keeno laakiin aniga waxaan ogaahay gabar aniga saaxiibo aan nahay my best friend ah cunugeeda oo mataqaana yarisa bibiya kindergarten dogska markay geysay dogska macluumaadka gabadha indha shareer u xirneed dogska macluumaad wiilku waxay ku tiraada gabadha hooyada ma u baahan in shareer xirto waxbay kugu sameeyaan naya waa la wareysanaya ilmaha yarkood kindergarten ka dhiganayo dogska dhiganayo waa la wareysanaya so cunugii horru ma noqdo habartii ma rabo inaan madaxa iska bixi
okay waxaan iska bixi because macalimadeeda ay tiri uma baahnid diyaanista waxaan ka hadlayo so yeah meeshaan jarmalka ilmaha aniga hadda gabadhayda actually intaan video soo duubnay idaan wareystay waxaan ku dhahay weligaa maclimadaada ma ku wareysatay guriga wax ka dhaco I know before waa wareysan jiray laakiin just to make sure haddeertaan inay mataqaan wax soo xasuusato weligaa maclimada guriga wax ma ka wareysatay no weligaa maclimada wax guriga ma wareysanin dekanaga no inta xasuusta xidil hooy weliga waxa malwas kuwa kale waa weydiin no kuleeyihiin mal is wareysanaay meeshan guriga maxaad qabataa hooyada miya ku dishaa raakaa miya ku dilaan ilmihii la dadafay ilmahana waa iska qaataa Scandinavian waxay ku xidhay ilmaha iska qaataa Jarmalka ilmaha markii laga qaadanayo oh my god it has to be a severe case waa inuu jiraa ilmaha is not easy ani waxaan xasuustaa gabadhayda ii sheegtay gabadhayda waxay u tiri hooy macalimadeena gabar aan isku fasalnahay tiri gabar saaxiib ahaayeen tagtay macluumadeeda u tagtay waxay tiri maxaa la gabadha waxa way Albanian I don't know meelaha ka imaaday gabadhii macluumadii u tagtay caashadeena way israaceen so waxay tiri macluumada u tagnay tiri macluumada marka u tagtay waxay tiri macluumada u sheegtay tiri aabahay wuu idilay you know no hooyaday way idishay hooyaday walaalahay sorry tee maxaa la dhahay isheeg footage-ka kaamirada way dantay inaan duubaya moodayay anyway inta indii kaga dhamaystiraya insha Allah marka gabadha markay ku tiraaday hooyaday way idishay macalimadeeda waxay ugu jawaabtay waxay tiri gabadheeda waxay ku tiri macalimada hooyo waxay ku tiri ma taqaana gabadha waxay ku tiri maxaa ku sameysay hooyada ee ku carootay kugu dishay marka marda ma sameeyna tiri waxaad sameysay hooyada ay u carootay kugu dishay ma fahmaysaa so imagine idinka fiiriya waxa soo kale hadii macnaha macalin ama macalin meelahaas jooga iskoolaadka taagan hadday iswiin cunug u ku dhaho subxaanallah ilmahaas waxa waaye lama arkaayo waana lala cararaya laakiin alxamdulilah ilaa hadda jarmalka aniga maana arag maxaa la dhahaa isheegana mushaqa saas u weyn oo mataqaana dadkii loo daba kaco laakiin de definitely wixii maxay noqonaysaa in lasaga daydo way imaan doontaa in lasaga daydo in ilaahay subxaana watacaala ha naga fogeeyo naguna mana keeno walaalahay marka maanta waxaan rabay afartan shay aan rabay maanta inaan insha Allah idinla qaybsado hataa jeceshihiin video kaleetaan hayaa oo aan isku barbardhigayo Jarmalka iyo Mareykanka dhowrka shay Jarmalka uga fiican tahay Mareykanka hadaa rabtaa inaan videogaas insha Allah idan idin soo gudbiyo thumbs up isamay hoosna igu soo qor bidmilaal karim videogaasna insha Allah bidmilaal karim waa idin soo gudbinaa waxyaabaha uga fiicanna Jarmalka waxyaabaha Mareykanka uga fiicanna Europe hadii la isku keeno Mareykanka iyo Europe waxyaabaha kala fiican yihiin insha Allah bidmilaal walaalahay intaas waxaan idinka tagayaa habeen wanaagsan maalin wanaagsan adduunka meel kasta ku nooshihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rajeynayaa ramadaan wanaagsan inaad ku jirtaan insha Allah assalaamu calaykum waa inoo videoga dambeeto biidmillahi alkariim